اوكي اوكي caawa bilaabina insha allah habeenkiinu iskaga dambeysay waxaan ka hadalnay JSX kulley wax baan ka sheegnay laakiin caawa waxaan rabnaa inaan u gudubno stepka xigo kulley probes iyo waxyaabaha la midka ah dib aan uga soo laaban doonaa markaan waxyaabo kale soo fahanno marka hadhowt markaasay macno sameynaysaa inaad fahanto probes iyo sidoo u shaqeynayo waxaas macno badan markaas kugu sameyn doontaa ama way kugu imaanaysaa baahidiisa inaad u baahan tahay probes okay marka taas niyad ku hay probes dib aan ka dhiganaynaa oo kulley isbuucan gudihiisaan arki doonaa marka laakiin hadda waxaan focus saareynaa component waxay yiraahdeen reactive component okay component ilaahay kuma samadiiday si fudud ana hadan u dhaho oo ana aragtideeda waaya waxaan dhihi karaa federal waxay yiraahdeen federal ana federalka kulley siyaasadii waxaas waaya ka lahaa kulley waa iska siyaasiyiin iska naan Soomaaliya hadaan waxa waaya siyaasadda waxa aan lagu qaban waay marka waa wada baranay marka nidaamka federaalka hadaad fiiriso Soomaaliya waa aragtaan ayada dhan waxay u qaybsan tahay dawlad goboleedyo qolo Puntland la yiraahdaa qolo kaleeto waxa la yiraahdaa Koonfur Galbeed qolo kaleeto Jubbaland qolo kaleeto qoloba waxba la yiraahdaa soo cad maanta ma marka waxaas oo dhan waa wada components kaas oo dhan waxay sameynayaan hal component weyn oo Soomaaliya la yiraahdo okay Soomaaliya markii san tahay Soomaaliya markii tan tahay component kamida waa Puntland ka soo qabo component kale oo kamida inay tahay muxuu ahaay Hirshabelle ya component kale waxa laga yaabaa inuu yahay ilaahay kuma samadiiday galmudug bay Soomaaliya baarida gal component kale waxa jiro ka soo qabo inay tahay Koonfur Galbeed okay ee component kale oo la yiraahdo Jubbaland okay Jubbaland macnaha taasoo kale inay tahay okay waxaana components ah markay isku tagaan ayaa waxa dhalanaya Soomaaliya waxay yiraahdeen kulay Somaliland iyo kuwaas arintooda gooni waay laakiin si markay intaan hadda Soomaali inta la yiraahdo waa intaan macnaha okay marka intaan markay isku tagaan waxay noqdaan Soomaaliya marka components ka marka faa'iidada leedahay marka maxay tahay kulay dadku waa ku kala aragti guduwayeen nidaamka federaalka waa qaladii leeyahay nidaamna dadna waa sax leeyahay laakiin aan marka program ahaan fiiriyo waa dadka saxda dhaayaan ku jira macnaha aqbalsan nidaamkaas federaalka in baasha loo kala qaybiyo program ahaan markii la yiraahdo components tan oo kale faa'iidada leedahay marka maxaa waaye faa'iidada leedahay waxa waaye waagii hore Soomaaliya waa ogeedeen Soomaaliya markii burbureysay hal component ahayd Soomaaliya dhan hal component ahayd oo nin Maxamed Siyaad Barre la yiraahdo ka talin jiray inta kale gobollo ku dhex yaal ahayd soo cad fanta ma marka one component ahayd Soomaaliya dhan waa hal component ahayd componentiga marka cilada ku imaatay cilad markii ku imaatay application-ka dhan down noqdo markii okay marka Soomaaliya dhan burburtay halka mar oo cilad ay ku timid waa aragteen waxa waaye dalka dhan waa burburay lafaha la iska garaac waxba la isku mareen marka bad practice waa markii programming la joogo arintan oo kaleeto bad practice waa in application-ka dhan one component ka dhigto okay marka arintan marka maxay soo kordhinaysaa tan oo kaleeto maanta hadii Soomaaliya la meelahan adartan la isku hooseystaa hadii madax isla galaan way fududahay qoladan Puntland inay yiraahdaan okay area-deena anaga xuduuda leenahay inaga soo farageli karto malaha anaga awal hore ismaamuleena nidaamkeena ku wadanaa kuwan kale tan sidoo kale inay yiraahdaan kuwan kale tan hadii rabaan go'aan ay gaari karaan sidaas oo kale taa marka sidii hore hadii maanta ay baasha isku dhacdo ilaahay ma keenay sidii hore way ka fududaanay
sidii horeeto awal koreeto nidaamkana hal component uu ahaa halkaas component markuu halaabay macnaheedu waxa waaye waxa dhan waa isku wada baabeen laakiin sadartaan markuu kan uu halaabo ama hal component kamid ah hadii lacala Jubbaland oo kale hadii cilad ka timaado very simple kuwan kale wax dhibaato ma soo gaarayso kan waa la xalin karaa markaas qodobkaas ma la fahmaysan marka application programming markaan u gudubno oo qodobka la mid ah marka programming la yiraahdo waxay noqonay application ka aad sameynaysid sidaan oo kale taa ha ka dhigin wax walba hal component oo halkan application ku jira ha ka dhigin fikradan noocaas oo okay halkan component marka dhibaatadu leeyahay waxay tahay hadii cilad ku timaado kan oo kale component haduu cilad crash garoobo means application kan dhan uu crash garoobo application kaaga is down marka waa dhacay okay laakiin se application ka duu yahay many components haduu ka kooban yahay inta component waaye this is component gan wuxuu ka imaanayaa halkan marka kan hadii cilad lacala ku timaado very simple way kan waxba dhibaato ma gaarin sidiisu u shaqeynaya laakiin qaybtan waa la xalin karaa hadhooti error ay yimid ama cilada hadhooti simple application ka debugging laga shaqeynaa mar walba marka application marka debug gareynaysid very easy way meesha qalad ka jiro isla markiiba waa attack gareyn kartaa oo isla markiiba waa wajihi kartaa oo xalkeedana waa ku dhaqaaqi kartaa laakiin sa application ka duu yahay one component application ka dhan hawadu ka baxsan yahay okay marka taas oo kale taa marka waxa waay faa'iidada leedahay marka application ka in la kala qaybiyo components loo kala qaybiyo faa'iidada leedahay tan oo kale kamid ah marka component nidaamkaas waay macnaha in application ka la kala qaado functionality-giisa asagoo dhan la kala qaado macnaha marka kelmadda component la leeyahay oo Ingiriis ahaan waxa waaye is a part of a whole macnaha wax weyn qayb kamid ah waay macnaha okay adoo application kaaga sidaan yahay qayb kamid ah unba component la yiraahdo qaybtaas specific area ka imaan doonta halkaas aad dhigto hadii cilad ay ku timaado si fudud lagu xalin karaa hadii laakiin uu yahay application kaaga one component waxa imaanayo way adagtaa xal markii la xalinayo xataa waa adkaanaysa waayo hal code base ka shaqeynayso halkaas code base waxa laga yaabaa in application ka dhan isku wada xirxiran yahay si darteedna hal meel hada wax ka bedesho meel kale inay dhaawacdo taasoo ah bad practice programming markii laga hadlayo principle la yiraahdo solid principle macnaha okay marka react marka algorithm kii qaadato waxa waa nidaamka federaalka camal macnaha okay react federal waa markaas macnaha si yani hadii loo hadlo muxuu ahaay lemon example ahaan marka react waa nidaam waxay algorithm waxay qaadatay ah component application ka in la kala jijibiyo oo qayb loo kala qaado horay back end kulli front end waa halkan laakiin back end na wuu jira back end laba nooc ah jirto nooc waxa jiro kulli nidaamka caadiga ah one component waxa loo yaqaanaa monolithic okay monolithic loo yaqaanaa nidaam kale waxa jiro microservices la yiraahdo asagana microservices asagana waxa waaye waa smaller parts of components macnaha ama component iyo yar ee application uu ka kooban yahay macnaha waa nidaamka good practice ka okay nidaamkana nooca ugu fiican ah laakiin nidaamkan kulli waxa lagu sameeyaa monolithic markuu yahay application ka macnaha waxay ka dhigan tahay application ko dhan hal yani application oo wada shaqeynayo oo qaybaha uu ka kooban yahay application ko dhan ka wada kooban sida waxa isku jirta kaba soo qabo qaybtii registration waa ku jirta qaybtii admin waa ku jirta qaybtii waxa ku jiro magaciisi ilaahay ku mismadiyo notification ki qayb walbo application ku u baahan yahay halkan application waa okay nidaamkaas marka dirtaan nidaamyada caadiga oo dadka inta badan kulli adinki C# oo aragtay C# ka nidaam waxa sameeynaysan oo dhan nidaamkiisu waxa way waa monolithic architecture waa okay it's not good practice kulli wuu fiican wuxuu ku fiican yahay smaller applications ka faa'iidooyinku leeyahay waxa way application ka haduu yar yahay oo small yahay is good inaad isticmaasho monolithic ilaahay kuma samadiyo wayna fududahay faa'iidooyinku leeyahay waxa way in la develop gareeyna easy way okay laakiin faa'iido daradu leeyahay marka waxa waaye waxaana faa'iidadu leeyahay kan waxa kamid ah saddexaad waxay noqon kartaa
maintenancegiisana waa fududyahay. Okay, in yani iraade deploymentigiisa markaad rabto inaad internetka saarto aad u sahlantahay. laakiin faa'iido daradiisa marka maxaa waaye? faa'iido daradiisa waxaa waaye kow horta applicationkii oo dhan hal component waaye, hal functionality. haddii functionality lagu dari rabo ama functionality la bedeli rabo way adag tahay in shaqadaas la qabto, waayo waxaa laga yaabaa application parts ka mid ah inay u xayranto oo application sidaa darteed uu ku shaqeyn waayo nidaamkaas ay isticmaalayso waa monolithic. Okay, smaller applicationsna ma large applicationna maba anfaci karaba inaad isticmaasho monolithic application, monolithic design. kulli waa isticmaali kartaa, laakiinse waxaa waaye application loo baahan yahay ma noqonayo application muxuu ahaaye ilaahay kuma soo diiday muddo sii shaqeynayo ma noqon karo, waayo applicationka mar walba software means waxaa waaye waa soft product macnaha. Okay, soft waa jileec lemo, soft waa jileec macnaha. wearna maxaa waaye hello wear means wear macnaha product u tahay wear product u dhiganta macnaha. Okay, product marka application macnaha waa product, software product. software is soft product macnaha waa product jilicsan macnaha. Okay, product jilicsan. wax jilicsan maxaa lagu yaqaanaa? waxaa aad u sahlan horta in muxuu ahaaye janjin in lagu sameyn karo. hadda kaba soo qabo company wuxuu sameeyey baabuura la sameeyey, kaba soo qaad baabuurtan taayirra iyo waxyaabaha lagu rakibay, kadibna waa la wada sameeyey baabuurtii, taayiradii oo dhan baabuurta waa wada leeyihiin. waxaa laga yaabaa taayirkaas inay cilad ku timaado. Okay, 100 kun oo gaariyaa la sameeyey oo hardware ah halkaasay taagan yihiin. taayiradii markii engineerada analyze gareeyeen waxay yiraahdeen warnimayo cilada jirto, taayirkaas cilada noocaas uu leeyahay, hal bedel hadii la yiraahdo meeqay ku kacaysaa? qarash fara badan ku kacay in dib loogu laabto oo ilaahay kuma soo diiday wax walba taayir walba 100 kun oo gaari oo min 4 taayir aad ku dhufatid meeqa waay alaab waaya. marka aad u badan tahay, marka wax shaqo fara badan ay galayaan. laakiin aad nidaamka noocaas principle-ka noocaas oo hardware-ka hadaad martid adoo software sameynaysid, that's bad macnaha bad practice waay. Okay, marka waxaa fiican كلمات maadaama ay tahay software means easy to change. kaba soo qaad application la sameeyay, application kan cilada timid ay leeyahay ruuxaas cilad meeshaas leedahay. Okay, way fududahay in la xalliyo. waxa ku fududahay means shaqadaas oo dhan ama taayirkaas kaba soo qabo, taayirkaas kaba soo qaad inuu laayo kale to magaciisi oo kale inay ka maqan tahay koolo oo baabuurta lagu shubay jirto oo tubeless looga dhigo, kooladaas ever noqotay leeyahay. very simple variable ka koolada yani lagu shubi doonaa koolada fiican lagu shubi doonaa. that's easy. application ka janji lagu sameeyay means taayirada waa wada hagaasan yihiin, 100 kun oo taayir means waa hagaasan yihiin markaas. that's software macnaha. Okay, marka productiga saas easy gu ah adiga hadaad marka nidaamka monolithic ah application kan hal application hadaad ka dhigto way kugu adkaan doontaa maintenance-giis. Okay, maintenance-giisa inaad wax ka bedesho way kugu adkaanaysaa, waayo hadaad meeshan function meelahan ku jiro kale hadaad lacala wax ka bedesho waxa laga yaabaa party kale to application-ka qaybta customers oo kale inay saameyso application meeshan wax ka bedesho oo hadhowtina yani crash uu ku yimaado. Okay, laakiin nidaamka microservices-ka asiga marka maxaa waaye uu ka duwan yahay? asiga wuxuu kaga duwan yahay application-ka dhan parts loo kala qaybiyay. hadda tusaale waxa uu ah wuxuu ahaay Amazon oo kale. Amazon haddaad tagto kaba soo qabo website-kan amazon.com oo Alibaba marabo Alibaba iyo waxaas oo dhan waa ka sameeyeen. sorry Amazon raba Amazon fahmayna aniga. okay, how Amazon yes wakana website-ka halka marka ku dhufto muujida. hello wala jida. Amazon nidaamku waxay isticmaashaa microservice architecture, macnaha application kan in components loo kala qaado nidaamkaas isticmaashaa. kulli front end-ga React isticmaashaa
barnaamijyada noocaasa kulley waxaan front endiga ujeedid reactive u isticmaasha magaciisi qoladan Amazon laakiin back endigooda waxaa laga yaabaa kaba soo qaad inta hadda xogta ka muuqato meeshan waa productiska qaybtan productiska inuu ka imaanaya application yaalo wadan ruushka oo kale inuu yaalo serverkaas oo applicationkan uu ku rangareysan waxaa laga yaabaa surgeon-kana waxa halkan aad gelinaysid oo halkan ku qoraysidna inuu yaalo server kale to wadan kale yaalo inuu yahay oo Malaysia oo kale yaalo waxaa laga yaabaa meeshan yani functionality delivery iyo shaqooyinka noocaas qabanaysana waxaa laga yaabaa inay taalo America oo kale marka application-kii oo dhan waxaa loo kala qaadayaa components waa la kala jijibinayaa marka nidaamkaas la isticmaala back endiga kaasana good practice okay markii la yiraahdo application la develop gareynaya waxa good practice kan marka faa'iido daradu leeyahay waxa waaye it had to develop in la develop gareeyo xoogaa waa yara adagtahay laakiin faa'iidooyinku leeyahay aad u fara badan sidoo kale deployment-giisana waa yara adag yahay laakiin ilaahay kuma isma diiday development is very easy kan faa'iidadu leeyahay waxa waaye language independent luqad hal luqad application waxa laga yaabaa 10 luqadood in lagu sameeyo back endigiis waa macquul waxa laga yaabaa dirtaan qaybtan surgeon kaliya inay Java u gooyeen qaybtan xogtan soo daabacaysa inay Python u isticmaalaan qaybtan oo delivery waxaas Node.js u isticmaalaan laakiin hal application waayo application kan qaybtan oo kale kaba soo qaad customer means qof yani aad xariif uga soo sameeyay Node.js inuu sameeyaa macquul oo loo dhiib oo la yiraahdo ka shaqeeya adeerintaas customer registration kiisa iyo waxa laga rabaa information kiisa in la helo very simple qofkaas si fudud shaqadiisu qaadanaya hawshiisu qabsan doona qofkan kale waxa laga yaabaa notification inuu ka shaqeeyo asagana hawshiisu qabsanaya wax walba notification looga baahan ka shaqeyn doona qofkan waxa laga yaabaa in delivery arrimahaas uu ka shaqeeyo asagana shaqadiisu gooni u qabsanaya hadhow application kaas oo dhan hal gateway loo sameyn doona kulli nidaamka fikrad ahaan noocan marka noocaana la isticmaalaa markii large application la rabo in la dhiso laakiin dadka inta badan baashan uma diyaarsano laakiin waa adduunka intiisa badan aad loo isticmaalaa nidaamka microservices monolithic is not good for large applications marka react marka nidaamka hadda component lagu leeyahay waxa waaye in hadda ma dheena macnaha wuxuu la mid yahay kan oo kale oo microservices kulay waa way jiraan front end in microservices ahaan laga dhigo si loo fududeeyo magaciisa scalability iyo application ka performances laakiin qoladan reactive waxay ka isticmaalaan waxa waaye in application ka dhan smaller parts loo kala jijibiyo okay si hawsha dhowti ay u fududaato xal hadii loo baahdana in si fudud loo xalliyo qodobkaas component waa la fahanteen rajayna marka niyadu ku hay component kaliya ma ahan magaciisi muxuu ahaay dhinac walba wax wal dad waxa badanaa dadka qaar dhalinyarada qaar maraan wareyst aan weydiiyo waxay ahayd waxay ku leeyahay application ka saan oo kale markuu yahay qaybtan waa hal component inta waa hal component tusaale ahaan inta kale navigation kii waay inta sidebar kii waay intana waxa waay main kii intana waxa waay kuwa soo qabo right sidebar intana waa footer kii saasoo kale markuu yahay كله أنت one component أنت one component أنت one component أنت one component وحصلنا واضح لكن فكرة أهان component مركي اللي رادو وحين نقول إذا كان أنت أنا أبدأ أضيف component تاعي وcomponent صح واي لكن وحيصير لي هذا أيضا component سيرير navigation كانوا كلها تكبسوا dashboard وحكوا قرنا home معلومات فربنا السوق everything is a component okay wax walba waa component application ka dhan react marka nooca ay isticmaalayso noocaas waa in qayb walba application ka kamid ah waa component okay waxa laga yaabaa intaan adartan application ka adartan aan isticmaalayo kulli react ma laakiin fikrad ahaan kaba soo qaba intaan oo kale waa isku xiran tahay ama intaan oo kale hal shaqay qabtaan oo colorkii bedbedelaan okay colorka buttonka asiga ah waa one component area-dan waxa isku haysana waa hal component macna markaas hal component ay noqonayaan marka mid walba component gooni ah waa that is react components ka noocaas oo kale to macna okay marka insha Allah kulli wixii theory waa noocaas
waxaa jiro kulley diban kaga hadli doona waxa la yiraahdo virtual dam iyo waxyaabahaas in detailed kulley diban u dhiganaynaa si hadhowt markaas macno badan inoo sameynaa laakiin haddeertan adigoonan weli waxba sameyn haddii virtual dam iyo sida behind the scenes sheekadu uga socoto haddaan diving iyo waxyaaba kaleeto lamid haddaan ka sheekeeyo waxaa laga yaabaa inay baasha kugu cuslaato laakiin waxbaan sameyn doonaa kadib insha allah markaan waqti firaaqa u helnaan yani arrintaas ka wada hadli doonaa waxay yidhahdaan diving iyo sida behind the scenes sida dom real damka iyo virtual damka si iskula shaqeynayaan iyo algorithm ka isticmaalayaan iyo wax walba sidai u shaqeynayaan insha allah markaasaan ka hadli doonaa okay